madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Xildhibaan Saacadiye Xaaji Samatar ayaa xalay kulan gaar ah waxay ku wada yeesheen aqalka madaxtooyada kaasi oo looga hadlayay dhacdadii iyo isirsaantii Boosaaso ku dhaxmartay ciidan ka wada tirsan maamulka Puntland ilaa halkaasi ay ka degaysay gudoomiye ku-xigeenka oo sidoo kale wada deeq gargaar ah oo loogu talagalay dadku dhibaatada ay ku haystay deegaanadaasi. warar aan helnay ayaa sheegaya in gudoomiye Saacadiye ay doonaysay xalay fiidnimadii hore inay ka hadasho dhacdadaasi hase yeeshee madaxda sare ee dalka oo arintaasi ka war helay ayaa soo farigeliyay waxayna joojiyeen in ay arintaasi ay Saacadiye ka hadasho isla markaana ay kulan gaar ah ka wada yeesheen. xogan la helay ayaa soo kale waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ay qadka telefoonka kula hadleen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dalka dibadiisa ku maqan iyagoo ka wada hadlay in xaaladda la dejiyo Boosaaso isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland arintaasi ay xaliyaan. sidoo kale warar kale oo la helay ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo si degdeg ah Garowe ugu soo laaban doono waxaana Puntland ka degi doona sida xogo ay sheegayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ama Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre midkood si ay kaga wada hadlaan dhacdadii magaalada Boosaaso israasaynta ay ku dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland xilli gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya halkaasi ay deeq ka dejinaysay. waa dagaalkii labaad oo ka dhaca magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari intii uu xilka hayay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale hanti inta bale.